ciidamada booliska ee ka howlgala gobolka Saaxil oo horkacayo taliya qaybeedka ciidankaasi ayaa maanta howlgal ka fuliyay deegaanka Geedcaday ee ka tirsan degmada Laasadacawo oo maalintii shalay kalinkii dambe ay shaqaqa ku dhex martay qaar kamid ah beerleyda ku dhaqan deegaankaasi. ugu horeyna waxa muurtaasi ka warbixiyay taliya qaybeedka ciidanka booliska ee gobolka Saaxil Aadan Axmed Cawaale waxaanu sheegay inay howlgalkan ciidanku ku soo qabqabteen 28 maxbuus asaastii waxba kumay noqon burkii la isla dhacay iyo gudihii 9 mid baa dhaawaca 8 xalay baan soo qabanaa markay midnaas fadlan ka meesha fadhiyo ku jira inta rubaytii u dagaalantay ee goobta wada joogtay ee weerarka isku qaaday ee gacankaada ka ahayd weeyaan qorihiina waa kuwa miiska saaran oo soo qabanay kadibna waa kuwaas waa 20 minka jooga iyo 8 xalay la keenay waa 8 kaas waxaan u baaqayaa oo aan baaq u dirayaa oo aan u digayaa dadka deegaanka degan meel kastoo ay degan yihiin oo gobolka kamida Saaxil kamida dhulka dhuldaaqeenka in aan laga dhigahaynin beero marka la sameeyay wiilkan la sameeyay waxaan soo qaadnay jiilkii waan ka soo qaadnay tuubooyinkii cagafna waan u kaxaynaa waan soo baabiinaa dilay ka dhigo waxaan uga dilaynaa inaanay ku xiiqin oo aanay samaysanin meel aanay sharci u haysanin booliska ee ka howlgala gobolka Saaxil sidoo kale waxa uu digay cid kasta oo isku dayda inay dhul beere ka dhigato dhul daaqsimeed inaanay ka ogolaan doonin isla markaana ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo ganacsatada iyo aqoonyahanka waxaan uga digayaa dhulka dhul daaqsimeedka ee dadka miyiga ay isku dilayaan waa dhulkii daaqsimeedkii oo la kala iibsanayo horta maanta laga bilaabo guddida nabadgelyada gobolka go'aan bay gaadhay oo ka soo saartay dhul dambe oo dhul daaqsimeed ah in wiiga laga bilaabo maanta ilaa khamiista dambe uu soconayo meel kasta oo la ootay una sarac ku oolin la soo baabiinayo hadduu ceel ka qodan yahay la duminayo ceelka waxaan wasaaradda beeraha iyo deegaanka ka sharciyeysnayn oo wax sharciya aan loo sidan waa madnuuc in lacagna la iska geliyo qofka iska geliyana waanu qabanaynaa ee dhulka iibsada qofka ka iibiyana waa labid waa dambiile dadka dadweynahana waxaan uga digayaa hubka had iyo jeer ay ku degdegayaan hubka gacanta dawladda soo gal dib dambe ugama baxayo waana lagu maxkamadayn doonaa insha Allah taala وعبد الرشيد مبارك عبد الرشيد سور تلفزيون عالمي الصومالي كيبل بربرة